بسم الله الرحمن الرحيم. أو أحكبر ويدينتنا what is a share dilution أما سامي لميلي فضلا مركوري معناها share أما سامي كديسو لفاقوسي هذا share dilution أما سامي لميلي وحنكو قيحي كرنا ومركا أي شركة سو صارتو ساميال عصب أو آنان أهين سامياشي هوري مداس أو كينيسا إني يراتو بقول كيبا إنت آد كاليداي شركة دا سي أنو فاهنو آن إسلارغ نتصالحان andhaano adiga iyo qof kale waxaad gadatay biiso waxa ayna ka kooban tahay 4 cad qof waliba waxa uu leeyahay 2 cad andhaano 2 qof kale oo ah saaxiibatiin ayaa idin imaatay waxaadna wax ka siiseen biisadii haddaba cadka qof waliba ku soo aadaya wuu yaraaday oo meeshii ay ka ahayd 2 cad hadda waxa ay noqotay 1 cad midaas ayaa waxa loo yaqaanaa share dilution ama saamigii kugu soo aadayay oo yaraaday markana aan aragno tusaale la xiriira saamiyada عندنا waxaa la aasaasay shirkad XYZ waxa ayna leedahay 1000 saami adiga waxaad ka leedahay 10% midaas oo u dhigmata 100 saami waxaana ku gadatay cala saami lacag dhan $10 marka qiimaha guud ee maalgelinta waa $10 oo haddii aad $10 ku dhufatid 100kaadi saami waxa kuu soo baxaysa $10 oo ah lacagta aad maalgashatay haddaba shirkadii waxay go'aansatay inay soo saarto saamiyaal cusub oo dhan 1000 saami kale si ay u hesho lacag cusub ee ay shaqooyinkeeda ku qabsan karto awal waxa ay shirkadda lahayd 1000 haddaan ku darno 1000 cusub hadda tirada saamiyada waa 2000 oo saami adna weli waxaad leedahay isla boqolkii aad ka gadatay saamiyadii hore haddaba hoos ayay u dhacaysaa boqolkiiba inta kugu soo aadaysa oo meeshii aad awal ka lahayd 10% hadda waxaad yeelanaysaa 5% midaasna waxaa keentay tirada saamiyadaada ma aysan kordhin balse waxaa kordhay tirada saamiyada guud oo ay shirkadda leedahay oo boqolkaadii saami haddaad u qaybisid tirada guud ee saamiyada oo ah 2000 waxaa kuu soo baxaysa 5% midaasna waxaa loo yaqaanaa saami la milay ama share dilution midda kale waxaa iman kartaa in qiimaha saamiyada ay hoos u dhacaan oo meeshii ay ka ahayd $10 cala saami hadda waxaa laga yaabaa in suuqa la kala siisto $5 cala saami midaasna waxa ay keenaysaa in lacagtaadii aad maal gashatay ee hadda qiimaheeda noqoto $500 haddii aan $5 oo cala saami ah aan ku dhufano tirada saamiyadaada oo ah $100 waxaa soo baxaysa $500 sidoo kale sare ayuu aadi karaa qiimaha saamiyada oo meeshii awal ay ka ahayd $10 waxay noqon kartaa sidoo kale $20 balse waa haddii mashaariicda ay shirkadda qabanayso ay waxtar fiican u leeyihiin ummadda iyo dhaqaalaha ونانت سامي لملي أما شير dilution waxaa keena in la soo saaro saamiyaal cusub midaasoo keenaysa in boqolkiiba inta aad ka leedahay shirkadda ay yaraato iragooni haddaad rabtid saamiyada cusub waad gadan kartaa si boqolkiiba inta aad ka leedahay shirkadda aysan u yaraanin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما تسندين وإنه مركل هدي ربي إذنه